ra'iisul wasaaraha cusub ee bedeli lahaa ra'iisul wasaarihii shaqada laga eriyay ee Xasan Cali Khayre. ra'iisul wasaarihii hore markuu meesha ka baxay ra'iisul wasaare cusub ila magacaabo madaxweynuhu wuxuu haystaa dastuuriyan 30 maalmood saas darteed waqti hadda la isweydiiyo oo la dhaho maxaa ra'iisul wasaaraha loo magacaabi waaye lama gaari haddii 2 maalmood iyo maalin ka dhiman tahay waa dhici kartaa madaxweynuhu xataa codsi u gudbi karaa golaha shacbiga u dhigi karaa waqtiga kale hadda lagu daro markaa degdeg ma jiro laakiin su'aashu waxay tahay si caama madaxweynuhu ra'iisul wasaare nooce ah ayuu dooran karaa haddii madaxweynuhu uu ra'iisul wasaare dooranayo what criteria oo uu ku dooraa maxay tahay madaxweynuhu ra'iisul wasaaraha uu dooranaya ma wuxuu ku dooran doonaa hufnaan aqoon karti iyo inuu ka xigsan karo bulshada oo uu shaqadii ra'iisul wasaarenimada oo weliba xilli adag lagu jiro uu qaban karo ma saasuu ku dooranaa mise wuxuu ku dooranayaa ra'iisul wasaare magacaaban laakiin madaxweynuhu asagu uu yahay madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii sida xasan cali khayre oo kale qof kastoo soomaaliya waa og yahay xasan cali khayre wuxuu ahaa shaqaale ka tirsan xafiiska madaxweynaha labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ra'yul caalamka Soomaalida waxaa mashquuliyay filashada ra'iisul wasaaruhu uu magacaabi doono madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalsan waxay dib u eegaysaa howlaha horyaalla ra'iisul wasaaraha soo socda mucaaradka beesha caalamka dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka ahba waxay sugayaan ra'iisul wasaare dalka ka samata bixiya marxaladda lagu jiro oo dalka ku hogaamiyo doorasho loo dhan yahay oo waqtigeeda ku dhacda balse madaxweynaha oo maanka ku haya cadaadiska uu saaray ra'iisul wasaarihii hore waxa uu doonayaa amaba waxa uu doorbidayaa qorshe ka duwan ra'iisul wasaare cusub oo aan la ogeyn halka uu reerka ku furi doono ka hor magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub tallaabooyin noocee ah ayuu madaxweynuhu qaaday si uu gacmaha ugu xiro ra'iisul wasaaraha soo socda xitaa haddii uu la yimaado aragti ka duwan tan madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka ee doorashada magacaabista guddiga farsamo ee doorashada golaha wasiirada xil gaarsiiyayaasha ayaa 30kii bishii hore ansixiyay xubnaha guddiga farsamada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee ka baaraan degaya tallaabooyinka la xiriira hanaanka iyo habsami u socodka doorashooyinka taasoo ka dhigan in tallaabadii ugu horeysay uguna muhiimsanayd doorashada horey loo sii qaaday oo uusan aragti ku yeelan doonin ra'iisul wasaaraha cusub xitaa hadduusan heli karin xubnaha xafiiska ku matala sida uu falanqeynayo Professor Xasan Sheekh asal ahaan waxa hadda socdo dhan oo xeerka mataqaanaa la magacaabayo guddi adeegoo la magacaabayo batroolka laga shaqaynayo shirkii dhuusamareeb iyo wixii daba socda waxa laga shaqaynayo xil u magacaabidda mahadi xukuumaddan waxay soo saarayso dhammaan wax ka jira male marka waxay noqonaysaa marka haddii uu madaxweyne farmaajo ka shaqeeyo qashinkan hadda uu mahdi dhoodhoobayo inuu sii wado gudow ku dhacaa waxba uma taraayaan cid ka dhegaysanaysana ma jirto sida uu u magacaabaana wax ka jira ma jiraan qofka dadka Soomaalida waa og yihiin inuu madaxweynuhu falaadayo ee madaxweynuhu falaadka ka dhafa siyaasadda dhismaha golaha adeega garsoorka xukuumadda xilgaarsiintu waxay ansixisay 5 xubnood oo banaanka ka imaanaya guddiga adeega garsoorka tallaabadan ayaa ka dhigan in madaxweynuhu uu qaaday dhanka dhismaha maxkamad garsoor taas oo loo fasiran karo in uu u diyaar garoobayo muran ka dhalan kara doorashada soo socota ra'iisul wasaaraha soo socda meelna uguma bannaan sidoo kale dhismaha hay'adda batroolka xukuumaddu waxay ansixisay xubnaha hay'addan oo dadaal u galaysa qodobada ay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya isku haystaan ee kheyraad qaybsiga ra'iisul wasaaraha soo socda fursad uma heli doono in uu dowlad goboleedyada gorgortan kala galo arrintan waxa uuna waqtigiisa ku dhameysan doonaa isaga oo gacmaha ka xiran baarlamaanka oo la filayo in uu maalmaha soo socdo ay ansixiyaan mid ka mid ah noocyada doorasho ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka soo bandhigeen taasoo meesha ka saaraysa in haba yaraatee xukuumadda soo socoto aysan aragti ku yeelan doonin doorashada
sababta ugu weyn ee dib u dhigaysa magacaabista ra'iisul wasaaraha ayaa ah in madaxweynuhu sugayo ka gungaarista qodobadan isaga oo diidaya in uu qaato khatar ka imaan karta shakhsiga cusub sida uu mar kale qabo Professor Xasan Sheekh. madaxweyne farmaajo asaas raadiyo hay dhibka ugu weyn oo madaxweyne farmaajo ka haysta ama uu kala kulmi doono inuu ra'iisul wasaare helo waa inuu farmaajo asagu isu helo macnaha soo asagu isku heli wuxuu isku raadinayaa sida asaga oo rabo oo idealkiisa ah oo asaga oo shaqada u qaba karnaay asoon u qaba karin way hadanaya marka madaxweyne farmaajo culayska ugu badan oo uu la kulmayo waxay tahay ra'iisul wasaaraha uu raadinayo ma jiray asaas raadiyo hay arrinkaasina waa ku adkaa doonaa marka laba un bay marka mid noqonaysaa markaan waxaan samaynaynaa prediction inuu asagu isu soo helo farmaajo oo markuu asagu isu soo helo waxba uu qaba kari waayey ilaan ma qaba kariye oo 3 sano bar wixii fashilmay khayra ma asay ahaayeen iyo inuu soo helo ra'iisul wasaare karti leh oo shaqadii loogu talagalay ra'iisul wasaare inuu qabto qaba kara taasoo marka uu meesha ka cabsaa marka waa kana hadduu ra'iisul wasaare sax keeno wuxuu damci doonaa inuu ku farageliyo markaas ra'iisul wasaaraha saxda ee imaan doona khayro farmaajo inta geeya baarlamaanka markiisa 7 daqiiqo lagu buriha marka dhibka haysta madaxweyne farmaajo waxaa waaye laba daran mid dooro hadduu asagu isu keeno iskuma filna hadduu ra'iisul wasaare kale keenana waa buriha asoo buriha ra'iisul wasaare marka farmaajo culayska hor taagan oo uu ra'iisul wasaare u magacaabi leeyahay waa asaga labada wado hadduu midig u baxo iyo hadduu bidix u baxana labadaba riskigu waa very high sababtu waxay tahay 3 sano bar oo la soo dhaafay ayaa dadka Soomaaliyeed been loo sheegay waa guulaysanay waxbaan qabanay guushaas oo ahaa jirtay oo dadka loogu faani jiray oo looga dhigi jiray wax qabad aniga iyo ra'iisul wasaare isla joogin ra'iisul wasaare waxay iskula joogeen ra'iisul wasaaruhu shaqaalaha xafiiskiisu ah asagana waa shaqay waay ilaa waxa la iska rabaa wax qabad political delivery asagana waa la waay marka jahawareerka ee madaxweyne farmaajo ilmaha yararka ee xaafadaha waxay cayraan wax la dhaho cayar loo ka dhimay ka dhim oo dhaha intaan ka baxaa meel alla meeshi la aado waa lagu soo qabaha madaxweyne farmaajo albaab kastoo garaaco waxa uga soo bixi doona no maya mid kastoo garaaco marka hadda qolkiisu 4 mitir oo ku jira meel uu uga baxuu leeyahay intaan ka baxaa meel alla meeshaas uu ku jiriyaa marka asaa israadinaya hadduu isu soo helana wax isu tari maayo hadduu ra'iisul wasaare fiican helana dhibaato ka soo gaari doonta marka I'm sorry for him waa ka xumahay inuu riski asagu isgeliyay sababtu waxay tahay hadduu dalkiisa dadkiisa uga shaqayn lahay sidii loogu talagalay dhibaatadan ma haysan lahayn kaalinta ra'iisul wasaaraha soo socda ayaa ku koobmi doonto ka qaybgalka shirka dhuusamareeb iyo shirarka la xiriira doorashada. Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho. maxaa hortaagan magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee bedeli lahaa ra'iisul wasaarihii shaqada laga eriyay ee Xasan Cali Khayre? ra'iisul wasaarihii hore markuu meesha ka baxay ra'iisul wasaare cusub ila magacaabo madaxweynuhu wuxuu haystaa dastuuriyan 30 maalmood saas darteed waqti hadda la isweydiiyo oo la dhaho maxaa ra'iisul wasaaraha loo magacaabi waaye lama gaari haddii 2 maalmood iyo maalin ka dhiman tahay waa dhici kartaa madaxweynuhu xataa codsi u gudbi karaa golaha shacbiga u dhigi karaa waqtiga kale hadda lagu daro markaa degdeg ma jiro laakiin su'aashu waxay tahay si caama madaxweynuhu ra'iisul wasaare nooce ah ayuu dooran karaa haddii madaxweynuhu uu ra'iisul wasaare dooranayo what criteria oo uu ku dooraa maxay tahay madaxweynuhu ra'iisul wasaaraha uu dooranaya ma wuxuu ku dooran doonaa hufnaan aqoon karti iyo inuu ka xigsan karo bulshada oo uu shaqadii ra'iisul wasaarenimada
oo weliba xilli adag lagu jiro uu qaban karo ma saasuu ku dooranaa mise wuxuu ku dooranayaa ra'iisul wasaare magacaaban laakiin madaxweynuhu asagu uu yahay madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii sida xasan cali khayre oo kale qof kastoo Soomaaliya waa og yahay xasan cali khayre wuxuu ahaa shaqaale ka tirsan xafiiska madaxweynaha labadii toddobaad ee la soo dhaafay ra'yul caalamka Soomaalida waxaa mashquuliyay filashada ra'iisul wasaaruhu uu magacaabi doono madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalsan waxay dib u eegaysaa howlaha horyaalla ra'iisul wasaaraha soo socda mucaaradka beesha caalamka dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka ahba waxay sugayaan ra'iisul wasaare dalka ka samata bixiya marxaladda lagu jiro oo dalka ku hogaamiyo doorasho loo dhan yahay oo waqtigeeda ku dhacda balse madaxweynaha oo maanka ku haya cadaadiska uu saaray ra'iisul wasaarihii hore waxa uu doonayaa amaba waxa uu doorbidayaa qorshe ka duwan ra'iisul wasaare cusub oo aan la ogeyn halka uu reerka ku furi doono ka hor magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub tallaabooyin noocee ah ayuu madaxweynuhu qaaday si uu gacmaha ugu xiro ra'iisul wasaaraha soo socda xitaa haddii uu la yimaado aragti ka duwan tan madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka ee doorashada magacaabista guddiga farsamo ee doorashada golaha wasiirada xil gaarsiiyayaasha ayaa 30kii bishii hore ansixiyay xubnaha guddiga farsamada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee ka baaraan degaya tallaabooyinka la xiriira hanaanka iyo habsami u socodka doorashooyinka taasoo ka dhigan in tallaabadii ugu horeysay uguna muhiimsanayd doorashada horey loo sii qaaday oo uusan aragti ku yeelan doonin ra'iisul wasaaraha cusub xitaa hadduusan heli karin xubnaha xafiiska ku matala sida uu falanqeynayo Professor Xasan Sheekh asal ahaan waxa hadda socdo dhan oo xeerka mataqaanaa la magacaabayo guddi adeegyo la magacaabayo batroolka laga shaqeynayo shirkii dhuusamareeb iyo wixii daba socda waxa laga shaqeynayo xil u magacaabidda mahadi xukuumaddan waxay soo saarayso dhammaan wax ka jira male marka waxay noqonaysaa marka haddii uu madaxweyne Farmaajo ka shaqeeyo qashinkan hadda uu mahdi dhoodhoobayo inuu sii wado gudow ku dhaca waxba uma taraayaan cid ka dhageysanaysana ma jirto sida uu u magacaabana wax ka jira ma jiraan qofka dadka Soomaalidu waa og yihiin inuu madaxweynuhu falaadayo ee madaxweynuhu falaadka ka dhafa siyaasadda dhismaha golaha adeega garsoorka xukuumadda xilgaarsiintu waxay ansixisay 5 xubnood oo bannaanka ka imaanaya guddiga adeega garsoorka tallaabadan ayaa ka dhigan in madaxweynuhu uu qaaday dhanka dhismaha maxkamad garsoor taas oo loo fasiran karo in uu u diyaar garoobayo muran ka dhalan kara doorashada soo socota ra'iisul wasaaraha soo socda meelna uguma bannaan sidoo kale dhismaha hay'adda batroolka xukuumaddu waxay ansixisay xubnaha hay'addan oo dadaal u galaysa qodobada ay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya isku haystaan ee kheyraad qaybsiga ra'iisul wasaaraha soo socda fursad uma heli doono in uu dowlad goboleedyada gorgortan kala galo arrintan waxa uuna waqtigiisa ku dhameysan doonaa isaga oo gacmaha ka xiran baarlamaanka oo la filayo in uu maalmaha soo socdo ay ansixiyaan mid ka mid ah noocyada doorasho ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka soo bandhigeen taasoo meesha ka saaraysa in haba yaraatee xukuumadda soo socoto aysan aragti ku yeelan doonin doorashada sababta ugu weyn ee dib u dhigaysa magacaabista ra'iisul wasaaraha ayaa ah in madaxweynuhu sugayo ka gungaarista qodobadan isaga oo diidaya in uu qaato khatar ka imaan karta shakhsiga cusub sida uu mar kale qabo Professor Xasan Sheekh madaxweyne Farmaajo asaas raadiyuha dhibka ugu weyn oo madaxweyne Farmaajo ka haysta ama uu kala kulmi doono inuu ra'iisul wasaare helo waa inuu Farmaajo asagu isu helo macnaha soo asagu isku heli wuxuu isku raadinayaa sida asaga oo rabo oo idealkiisa ah oo asaga oo shaqada u qaba karnaa asoon u qaba karin way hadanaya marka madaxweyne Farmaajo culayska ugu badan oo uu la kulmayo waxay tahay ra'iisul wasaaraha oo raadinayo ma jiray asaas raadiyuha arrinkaasina waa ku adkaa doonaa marka laba un bay marka mid noqonaysaa marka waxaan samaynaynaa prediction inuu asagu isu soo helo Farmaajo oo markuu asagu isu soo helo waxba uu qaba kari waayay ilaan ma qaba kariye oo 3 sano bar wixii fashilmay khayra ma asay ahaayeen iyo inuu soo helo ra'iisul wasaare karti leh oo shaqadii loogu talagalay ra'iisul wasaare inuu qabto qaba kara taasoo marka uu meesha ka cabsa marka waa kana
hadduu ra'iisul wasaare saxa keeno wuxuu damci doonaa inuu ku farageliyo markaas ra'iisul wasaaraha saxda ee imaan doona khayrow farmaajo inta geeya baarlamaanka aan markiisa 7 daqiiqa lagu buriha marka dhibka haysta madaxweyne farmaajo waxaa waaye 2 daran mid dooro hadduu asagu isu keeno iskuma filna hadduu ra'iisul wasaare kale keenana waa buriha asoo buriha ra'iisul wasaare marka farmaajo culayska hor taagan oo uu ra'iisul wasaare u magacaabi la yahay waa asaga labada wado hadduu midig u baxo iyo hadduu bidix u baxana labadaba riskigu waa very high sababtu waxay tahay 3 sano ya bar oo la soo dhaafay ayaa dadka Soomaaliyeed been loo sheegay waa guulaysanay waxbaan qabanay guushaasoo ahaa jirtay oo dadka loogu faani jiray oo looga dhigi jiray wax qabad aniga iyo ra'iisul wasaare isla joogin ra'iisul wasaare waxay iskula joogeen ra'iisul wasaaruhu shaqaalaha xafiiskiisu ah asagana waa shaqay waaye ilaa waxa la iska rabaa wax qabad political delivery asagana waa la waaye marka jahawareerka haysta madaxweyne farmaajo ilmaha yararka ee xaafadaha waxay cayraan wax la dhaho cayar loo ka dhimay ka dhim oo dhaha intaan ka baxaa meel alla meeshi la aado waa lagu soo qabaha madaxweyne farmaajo albaab kastoo garaaco waxaa uga soo bixi doona no maya mid kastoo garaaco marka hadda qolkiisu 40 mitir oo ku jiraa meel uu uga baxuu leeyahay intaan ka baxaa meel alla meeshaas uu ku jiriyaa marka asaa israadinaya hadduu isu soo helana wax isu tari maayo hadduu ra'iisul wasaare fiican helana dhibaataa ka soo gaari doonta marka I'm sorry for him waa ka xumahay inuu riski asagu isgeliyey sababtu waxay tahay hadduu dalkiisa dadkiisa uga shaqayn lahay sidii loogu talagalay dhibaatadan ma haysan lahayn kaalinta ra'iisul wasaaraha soo socda ayaa ku koobmi doonto ka qaybgalka shirka dhuusamareeb iyo shirarka la xiriira doorashada cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho